maanta waxaan ka bixin doonaa review mobilkan oo ah Galaxy A12 mobilkan waxa soo dalbatay inanta la dhaho Kaafi Xaaji taasoo ahayd inantii commentigeedu uu reaction ka badnaa iyadoo soo codsatay mobilkan Galaxy A12 inaan ka bixino review mobilkan Galaxy A12 ayaa wuxuu yahay mobilkii ka dambeeyay mobilka Galaxy A11 marka uu horeeya ee mobilkan aad gacanta ku dhigtana waxaad arki doontaa in mobilkani uu dhowr shay kaga duwan yahay mobilada ee serieska waxa ugu horeeya waxa weeye waa kamaradiisa iyo nooca uu samaysan tahay shape-ka kameradan amba qaabka kamarada uu samaysan tahay mobilkan ayaa wuxuu yahay waa qaab square soo kale colorka dambe ee mobilkan uu ka samaysan yahay ayaa wuxuu yahay laba color oo isku dhex jira oo aan isleekayn colorka sare ayaa wuxuu yahay color button oo kala ah xagga colorka hoosena uu yahay color saafiya amba solid color ah mobilkan ayaa waxa uu fingerprint ku leeyahay dhinaca kaasi hadhow tolo markaad ku xidhatana ahaan doona mid si dhakhsa u aqbal doona fartaada kaasi oo si degdeg ah uga furmi doona haddaynu eegno xagga dambe ee mobilkan waxa ku yeela godka ay galiyeen headphonesku waxa si raaca charger noociisu yahay type C kaasi oo wata charger cabirkiisu yahay 15 watt waxa intaasi ku si raaco ku yeela speaker codkiisu uu wanaagsan yahay mobilkan ayaa waxa uu leeyahay display cabirkiisu yahay 6.5 inch kaasi oo leh resolution dhan 720 ilaa 1600 waxa intaasi ku si raacin mobilkan uu ka samaysan yahay displayga noociisu yahay TFT display haddaynu u nimaadno mobilkan iyo dhinaca xawaaraha markay noqoto wuxuu ka samaysan yahay processorka noociisu yahay MediaTek Helio P35 kaasoo ku saamixi doona in shaqooyinka mobilkan uu ku qaban doono si wanaagsan haddii marka aad tahay tusaale ahaan qof gamer oo kale oo rabtid inaad ku ciyaarto mobilkan gameska wuxuu noqon doonaa mobilkan mid si caadi ah kugu rangareyn doona laakiin marka tusaale ahaan haddii aad rabtid PUBG ku ciyaarto oo kale si caadi ah ugu ciyaari karto oo ku rangareyn karaa laakiin meelaha qaar waxa jiri doona aan ku aqbal doono iyadoo u wacan tahay dhinaca graphics-ka mobilka haddaynu eegno mobilkan iyo dhinaca maskaxda gudaha markay noqoto waxa uu ku yimaadaa maruu yahay 20GB maruu yahay 40GB iyo maruu yahay 120GB waxaana ku heli kartaa mar RAM-kiisu yahay 3GB oo RAM ah iyo maruu yahay 4GB oo RAM ah iyo maruu yahay 6GB oo RAM batteriga mobilkan waxa uu kamid yahay astaamaha ugu fiican ee uu leeyahay mobilkan Galaxy A12 waxaana cabirka batterigiisu uu dhan yahay 5000 mAh waxaana uu ku sahlayaa inaad isticmaali karto muddo aad u dheer haddaynu u nimaadno kamarada mobilkan horta waxa uu kamid yahay mobiliska leh 4 kameradood waliba marka loo eego qiimaha mobilkan waxay kamaradiisu tahay kamarad aad u wanaagsan waxaan hadda idin la wadaagi doonaa bal sawiro lagu qaaday mobilkan Galaxy A12 mobilkan ayaa haddaynu eegno dhinaca kalarada waxa uu ku yimaadaa 4 kalar oo kala ah kalarka black white blue iyo sidoo kale kalarka redka amba casaanka haddii hadaba aad tahay qof markuu iibsanayo mobilka ku iibsada in batteriga mobilku yahay mid aad u fiican soo kale kamarada mobilkuna ay tahay mid fiican mobilkani waxa uu yahay ka ku haboon isagoo waliba qiimaha mobilkani uu yahay mid ka hooseeya $200 haddaba haddii aad ka heshay muuqaalada sano kale ee reviewga mobilada fadlan muuqaalkan like saar soo kale qaybta commentiga waxaad nagu soo qori doontaa mobilka aad u baahan tahay inaad wax badan ka ogaato haddii markaa commentiga uu reaction ka badan waxaad noqon doontaa commentiga aanu soo qaadan doono mobilka uu soo qoro